السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni ugu horeeyay maanta oo sabti aan idin soo gudbinayo. taariikhdu waxay ku beegan tahay 26 bisha Juulaay sanadka 2025. haddaba waa subaxnimo sabti ah. barnaamijkana waxaynu kaga hadli doonaa wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay xaaladda caalamka gaar ahaan bariga dhexe. qodobada wararka aynu idinkugu soo gudbinayno waxaa ka mid noqon doona ciidanka Israa'iil oo sheegay inay ka hortageen gantaalo laga soo riday Gaza goordhaweyd. Xuutiga oo sheegay inay qaadeen weeraro goobo muhiim ahna ay weerareen. haddaba tafaasiil ku saabsan weeraradaas waan idiin soo gudbin doonaa. waxaa sidoo kale aanu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa fadeexad weyn ayaa la sheegay inay ka soo baxday gargaar la sheegay ciidanka Israa'iil inay dhulka ku daadiyeen dhowr kun oo la sheegay baabuur gargaarkii ay wadeen inay si xun ula dhaqmeen. haddaba sirtan oo soo baxday ayaa fadeexad weyn mar kale waxay ku noqonaysaa Israa'iil, laakiin Israa'iil fadeexad ma kartaa leeyahay taasaa jawaab u baahan. haddaba marka tafaasiishaas waan idin hayaa. dhanka kale ra'iisul wasaaraha Ingiriiska oo culayskii uu ku sii kordhayo in ka badan 200 oo xildhibaanada baarlamaanka Ingiriiska ayaa codsanaya shirka dhici doona toddobaadka soo socda ee New York oo Faransiisku ku aqoonsan doono Falastiin in Ingiriiskuna uu halkaas rasmi ah ugu dhawaaqo inuu aqoonsanayo. haddaba cadaadiska Ingiriiska kaga imanaya Mareykanka iyo gudaha ayaa sii xoogaysanaya. haddaba tafaasiisha sheekadaas iyana barnaamijkan ku faahfaahin doonaa. inta aan ku jirno wixii warar soo kordhana waan idin la socodsiin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Suudaan, South Sudan, Tanzania iyo Turki. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa